elman sanadan waxay ciyaaraysaa horyaalka heerka labaad ee dalka Soomaaliya. haddaba maxaa ugu wacan kooxdan inay ciyaarto horyaalkan? kooxdii ugu guulaha badnaa musiibada ku agsatay maxay tahay? ma maamulka ayaa ka qaldamay nidaamkii kooxda ay u maamulayeen? ma dhaqaale la'aan ayaa dhacday? ma ciyaartoyda ayaa musallafay oo qarar ka keenay kooxda? ma xiriirka iyo karsoorayaasha ayaa ka soo horjeestay? maxaa loogu diiday kooxdan aasaasiyaashii iyo qoyskii ay ka soo farcantay? sheekooyinka iyo kuwa kale ayaa 2 ilaa 3 daqiiqo soo aadan daawade kugu faaqidi doonaa muuqaalkan. magacaygu waa Cabdulle Maxmed. xirfadan wax gudbinta waxaan ku soo dhex jiray muddo ku dhawaad 10 sano ah. igula soo dhawo muuqaal arrimahaas ku saabsan. Soomaali gabi ahaanteedba qof shaki uga jiro ma lahan in kooxdan iyo hay'ado kale oo samafalaba uu aasaasay Elman Cali Axmed oo ahaa samafalo Soomaaliyeed. inkastoo burburkii dawladnimo kadib kuwa manaxayaal ahi ay gacmahooda ku dileen, haddana shakhsigan samafalaha ahaa waxyaabihii uu sida fiican ugu dhiirado waxa ka mid ahaa in kooxdan ay noqoto koox ay dhalinyaradu iyagu lahaadaan isla maamulaan. dhimashadiisii kadibna kooxdan waxaa la wareegay ganacsato kala duwan kuwa uu soo maamulayay muddo aad u dheer. elman waxay noqotay kooxdii ugu badneed ee champion noqotay intii ay socdeen ciyaaraha horyaalka dalkeena Soomaaliya oo waqtigii lagu ciyaarayay garoonka jaamacadaha oo cara ahaa xilliga. laakiin tani markii loo soo wareegay garoonka Banaadir Stadium Ex-Conis kooxdan wax horyaal ma aysan qaadin. shakhsiyaad kala duwan oo tiro badan ayaa isku kala gudbay kooxdan iyo maamulkeeda. ciyaartoy kala duwan ayaa kooxdan yimid walow wiilashii horyaalka u qaadayay kooxdan ay inta badan ciyaaraha ka fadhiisteen waqtigan ama sanadihii dambe aysan ciyaarin. qaarkood ay hadda yihiin macallimiin maamula kooxaha heerka koowaad, kuwa labaad iyo kuwa saddexaad ee dalkeena Soomaaliya. haddaba maxaa ku dhacay kooxda Elman? waa su'aasha weyn ee loo baahan yahay daawade in la falanqeeyo, laga sheekeeyo ama si toos ah loo guda galo. kooxda ayaa shaqada ka soo joojisay Macallin Muraad oo ahaa macallin kooxdan waqti badan maamulayay. macallinkan waxa uu kooxda u soo isticmaalay falsafado kala duwan oo ay taageerayaasha qaar mahdiyeen, walow ay jireen taageerayaal badan iyo qayb ka mid ah nidaamka kooxda oo aad uga soo horjeestay. haddana Macallin Muraad oo waqti kooban kooxdan maamulay ayaa shaqada isaga tagay, waxaana kooxda loo dhiibay Macallin Kadambo oo lagu xasuusto kooxaha ay qayb ka tahay FC Hagen. Kadambo ilaa hadda ayuu maamulaa kooxda Elman waxa uu jecel yahay hadda inuu ka soo qaado kooxda horyaalka heerka labaad ee dalkeena Soomaaliya keenana horyaalka heerka koowaad. ciyaartoy uu ka mid yahay Saygar Ruushka oo hadda ku sugan kooxda Hagen lafdhabarna uu ahaa qad ka dhaxeeya Elman ayaa isaguna ka mid ahaa ciyaartoydii ka dhaqaaqay kooxdan markii shaqadu ay ku habsanaysay. sidoo kale Anwar Sid Ali Shakunda ayaa iskaga dhaqaaqay kooxda Elman, waxa uu noqday ciyaartoyda aan qaadan kaalintooda ku aadan inay la halgamaan kooxda ilaa iyo dhamaadka. Elman kulankii ugu dambeeyay horyaalka Soomaaliya ee ay u noqonaysay heerka labaad waxay guuldaro kala kulantay kooxda iyada naftirkeeda la liicaysa dhibaatooyinka LLB Cheyo oo uu wato kabtankii hore ee isla kooxdan xilligeedii hore iyo macallinkii xulka Galmudug ee finaalkii galay Axmed Tahlil. dhanka maamulka kooxda saaxiibayaal isbedel kala duwan ayaa lagu sameeyay. Cabdiqaadir Faarax Karocho ayaa kooxda laga qaaday xilkeedii gudoomiyay ee ugu sareeyay, waxaana loo dhibay Mudane Cabdirasaaq Carab oo hadda ah gudoomiyaha kooxda. sidoo kale Macallin Yu Cali oo kooxdan xasuus fiican loogu leeyahay ayaa qayb ka hadirtaan boorka sare ee kooxda Elman. laakiin nasiib darro kooxdu waxay hadda ku sugan tahay horyaalka heerka labaad ee dalkeena Soomaaliya. haddaba maxaa sidoo kale loogu diiday saaxiib daawade familkii iyo qoyskii aasaasay kooxdan asalkeedii in lagu wareejiyo? qoraal ay soo dhigtay page-keeda Twitter-ka markii kooxda Elman ay u noqotay horyaalka heerka labaad ee dalkeena Soomaaliya. Ilwaad Elman oo maamusha Elman Foundation oo aabaheed aasaasay iyo kooxda Elmanba ayaa sheegtay in iyada loo diiday in lagu wareejiyo maamulka kooxdeeda Elman. waxay sheegtay in lagu cusriyay inay tahay gabar oo ciyaaraha aysan wax kaalina ku lahayn. waxay sheegtay in gabdhaha aan laga xigin mar walba isboortiga, sidaa daraadeedna loo diiday in kooxda iyada ay maamusho. Ilwaad waxay xustay in iyadu ay diyaar u lahayd inay u halganto sidii ay u rumeyn lahayd riyadii aabaheedii ahaa in kooxdan iyo hay'adanba ay mar walba sii taagnaato, qarash badan ay ku bixin lahayd kooxdan, ayna dhici lahayn inay u noqoto horyaalka heerka labaad. laakiin ay dhici weysay midda iyadoo sheegaysa in dad manaxayaal ah oo aan dan ka lahayn kooxda iyo mustaqbalkeedaba ay gacanta ku hayaan ganacsi oo ka fikirayeen sidii dhaqaale kooxda uga helaan.
haddii arrintan ay jirto saaxiib daawadu waa mid iyaduna meel ka dhac ku ah isboortiga dalkeena Soomaaliya maxaa yeelay Elman waynu ognahay sidoo kale familkaasi ay ku leeyihiin xuquuq tiro badan oo asaasi ah haddii aad kooxda wax u tala weysid ama aad wax u qaban weysid waxaa xaq ah inaad iska bileysid booska dadkii wax u qabanayeen aad siisid waan filayaa daawada inaad heshay macluumaad kooban oo ku saabsan kooxda Elman iyo sababihii kalifay inay u noqoto heerka labaad ma aysan saameyn kooxdan xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta wax kalsooriyaan oo kasoo horjeestay ma jira sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay saaxiib fadlan muuqaalkeenan like garay muuqaalo kale oo xiiso badan ayaana sidoo kale page-keena ku jiray booqo YouTube-keena waad booqan kartaa sidoo kale waad maasantahay saaxiib daawade